موبيلكن ديزاين ahaan wuxuu u dhigmaa moobil qaali ah performance ahaan ama awoodiisu waxay u qabantaa in ka badan $300 kamaradiisu waxay ka awood badan tahay ama ka pixel weyn tahay moobilka A34 isaga iyo A34 se waxa u dhaxeeya in ka badan $100 qiimihiisu $150 ka sii hooseeya waa kuma performance-ga moobilka intaas la eg leh kamaradiisuna sida u fiican tahay in review garana moobilkan iyo videogan ila dhamayso fadlan moobilkan idin sheegayo waa Galaxy A14 ama A14 san idin sheegay moobilkan shirkadda Murasi waxaad ka helaysaa qiimo ka jaban $150 waliba maskaxdiisu ay tahay 128 GB moobilkan waa run san idin sheegay kamaradiisu waxay ka fiican tahay A34ka laakiinse reviewgiisu dhameystiran aan wada daawano shantii qodobna aan ku wada eegno moobilkan shanta qodob hadaan garanayn fiidigan ku ogaan doontaa ama fiidiyowadii hore la soo daawo si aad u fahanto shanta qodob aan ku eegno moobilkan iyo moobiladii horeba hadda qodobkan ku hadeen u gada galno aan eegno build quality-ga iyo design-ka moobilka intaan unboxing ku sameyn moobilkan waxa mudan inaan eegno moobilkan kartonka ku yimi waa kartoomadii dambe ee dhudhubnaa kartonkii ka horeeyay moobilkii kan ka horeeyay ee Galaxy A13 wuxuu ku yimi kartoomadii waaweynaa isaga waxa la socday madaxii charge-kii laakiin kan lama socdo madaxii charge-kii waxa la socdo kaliya USB moobilka haddii in furno moobilka waxaad arkaysaan in kartonkiisu uu yahay karton aad u dhuuban waxa ku jira oo kaliyana waa kartonkaas oo dhuuban oo ku jira USB moobilka iyo moobilkii oo kaliya wax kale oo la socda ma jira moobilka kartonkan yar oo dhuuban markaad furtid waxa kaaga soo baxaya USB waa USB Type-C moobilka oo kaliya wax kale oo la socda ma jiraan waayo moobilka markaad aragtid oo bacda sare aad ka furtid waxaad arkaysaa moobilkan midabku ku yimi oo midabka balaaga ah laakiin wuxuu ku yimaada afar midab oo kaliya sida kan ka arkaysid midabkan waa midabka balaaga ah haddaba hadii aanu xagga dambe iyo design-ka moobilka markaad aragtid xaggiisa dambe san hore kuugu sheegay wuxuu u egyahay moobilada qaaliga waliba S20 iyo wix kor uga kaca moobilkan wuxuu ku yimaada 3 kaamiradood iyo back-sirka dambe oo is wada leeg ma kuwi dhalada laakiin waa caag wali waxa uu mudaa inuu leeyahay gargaar marka codka aan sameeyaan maqli karaysid moobilkan sida wax kale ku yimaada fingerprint-ga wuxuu ku leeyahay halka looga moobilkan xagga dambe wuxuu ku leeyahay meesha laga galiyo earphones-ka iyo samacad xagga hoose intaas ku yimaada haddaba qodob kale hadaan guda galno waa display-ga moobilkan cabir ahaan wuxuu ku yimaada 6.6 inch sidoo kale moobilkan muraayad oo ku yimaado waa LCD screen moobilkan refresh rate-kiisu waa 90 Hz sida waxaad arkaysaa inuu smooth yahay wax culays aanu yeelanayn moobilkan quality ahaan ama resolution-ka moobilka marka aad daawanaysid YouTube-ka ama video daawanaysid video quality-ga sare daawanaysid waxa ku daawan karaysaa moobilkan loogu talagalay 1080 pixel oo noqonaysa full HD ku daawan karaysid moobil sidoo kale game-ka ku ciyaari karaysid full HD oo aan ku ciyaari karin ultra HD wax ka sareeya waayo moobilkan cabirkiisu wuxuu ku yimaadaa 1080 pixel haddaba san hore idinku sheegay moobilkan version-ka ku yimaado waa Android 13 iyo One UI saxdan wuxuu noqonay waa performance-ga moobilka ama awoodda moobilkan wuxuu ku yimaadaa Android 13 waliba version-ka One UI Core 5 moobilkan awood ahaan waa moobilada dhexe ma aha moobilada qaaliga ama awoodiisu aad u sareyso oo aad ka filin karaysid inaad ku ciyaari karto game waaweyn ama video 4K ku daawan karaysid laakiin awoodiisu waa awood dhexe moobilkan chipset-ka uu ku yimaado waa Exynos 850 Exynos waxa lagu tilmaamay inay tahay chipset-da dhexe awood ahaan iska yara fiican laakiin awoodiisu aanay liidan aanay sare way qiimihiisu sida ogtahay wuxuu ka hooseeyaa $150 sadarteed waa inaad ka filataa in awoodiisu ay tahay awood u dhigmi karta qiimaha aad ka bixisay laakiin sida aan ku review garanay moobilkan awoodiisa iyo qiimihiisa awoodiisa awood qodobka afraad ee soo noqonay waa kamarada moobilka hadii laba u kala qaadno selfie kamarada moobilka iyo main kamarada moobilka wuxuu ku yimaadaa 3 kamero sida arkaysid kamarada ugu sareyso loo yaqaan wide camera wuxuu ku yimaadaa cabir ahaan 50 megapixel kamarada dhexda ku jirta loo yaqaan in ultra wide wuxuu ku timaadaa 5 megapixel kamarada ugu hooseysa loo yiraahdo in macro camera oo lagu sawiro waxyaabo aad ka u soo dhow 2 megapixel ayay ku timaadaa haddaba selfie kamarada moobilka wuxuu ku yimaadaa 13 megapixel video ahaan moobilkan kamaradiisu wuxuu duubi karaa 1080 pixel 30 frame per second oo noqonaya full HD 4K ma duubi karo waayo qiimihiisa aad ogtahay wuxuu ka hooseeyaa $150 laakiin kamaradiisu aad u fiican san sheegayna moobilkan wuxuu ka pixel weyn yahay kamaradiisu moobilka la yiraahdo A34 oo qiimahan u dhaxayso in ka badan $100 sadarteed waxaan isleeyahay kamarada moobilkan iyo qiimihiisa waxa yar sareeya kamarada moobilka haddaba qodobkeena shanaad aan eegnay waa bayteriga moobilka sida aad ogtihiin Samsung mobiles waxay ku yimaadaan badanaa 5000 mAh bay ku yimaadaan sadarteed moobilkan wuxuu ku hayn karaa muddo gaaraysa 40 saacadood ilaa 30 saacadood moobilkan wuxuu ku yimaadaa oo kaliya aad arkayseen unboxing ku arkayseen USB oo kaliya
marka haddaad u isticmaashid madax gaaraya 25 iyo 15 waa caadi, laakiin sidiisa caadiga waxaa loogu talagalay 15 watt madax gaaraya. marka 15 watt madax gaaraya waa fast charger buu u noqonayaa mobilkan, darteed wuxuu kugu buuxin karaa muddo ka yar saacad.